أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waa sabti afarta rajab kun afar boqol saddex iyo afartanka hijrada shanta febraayo 2022 miilaadiga. waxaan joogaa almadiina almunawara, waxaana in yar ka akhrinayaa siirada asayid axmed almuhaajir calayhi salaamu, aabbaha ay ku abtirsadaan ashraafta xuseeniyiinta ah ee shangaani, muqdisho iyo soomaaliya dega. markay ahayd 1406 hijrada una dhigantay 2014 miilaadiga, ayaa dhalinyaro ashraaf ah oo xuseeniyiin ah oo jooga Ameerika iyo Ingiriiska waxay weydiisteen inaan u alifo qoraal yar oo kooban oo ku saabsan awoowahood ay ku abtirsadaan. afka Ingiriiskana aan ugu dhigo. waxaan qoraalkaas ka soo jeestay oo aan daabacay 12 safar 1436 hijrada 4 December 2014 miilaadiga. ashraaftu waa caruurta nebi maxamed sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. darajadooda sarreysana waxay ku dhigan tahay qur-aanka kariimka ah oo ilaahay dhowr aayadood wuxuu ku yiri ayna ka mid tahay aayadda la wada yaqaano ee suuratul ahzaab, innamaa yuriidu llaahu an yudhiba cankum arrijsa ahla albeyti. wuxuu kaloo caza wajalla suurata aali cimraan aayaddeeda 33 ku yiri ina allaha astafaa aadama wa nuuxan wa aala ibraahiima wa aala cimraana cala alcaalamiina. nabi maxamedna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam iyo caruurtiisu waxay ka mid yihiin aala ibraahim oo awowihiis uu ku abtirsado waa ibraahim calayhi salaam, oo waaba ayadoo markuu uu u dhashay nebi maxamed sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wiilkiisa ibraahim oo ay u dhashay umulmu'miniin maariya bintu shamcuun alqibtiya, oo hadda meeshaan aan hadda ka akhrinahayo gurigaan aan deganahay aan ka fogeyn oo cawaalida dhexdeeda ah, meesha la yidhaahdo mashrabatu ummi ibraahim. wuxuu asxaabtiisa ku yiri xalay waxaa ii dhashay wiil aan ku magacaabay oo aan ku samiyey aabbahay ibraahim. marka nabiga iyo calayhi salaatu wasalaam iyo ibraahimna calayhi salaam waxaa u dhexaysay 3470 sano ka hor dhalashada nebi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam ayuu ibraahim noolaa. intaasaa labadooda calayhim assalaamu u dhexaysay. marka ashraaftu ahlulbeytku waxay ka mid yihiin diinta islaamka, waa qeyb xoog leh oo diinta ka mid ah. hadda ka hor waa uga akhriyey, inta badanna waa noo dambaysa haddii ilaahay idmo. mar aan markaan ahayn ayaan ka hadli doonaa. oo haddase waxaan ka akhrinayaa kitaabka asayuuti, alimaam asayuuti waa saaxib aljalaalayn, tafsiirka aljalaalayn ninka wax ka dhigay wey, jalaaludiin asayuuti waay. kitaabkiisa la yidhaahdo ixyaau almeyti bifadaa'ili ahli albeyti.
wuxuu xadiis waa 60 xadiis oo ahlulbeytka ku saabsan ayuu ku koobay kitaabkiisaas. xadiiska koowaad wuxuu leeyahay saciid bin mansuur wuxuu kitaabkiisa sunanka saciid bin jubayr allah raalli ka noqday uga wariyey inuu macnaha aayadda qul laa as'alukum calayhi ajran ila almawaddata fi lqurba inuu macnaheedu yahay waa qaraabada rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam. xadiidka labaad ibnu lmundir iyo ibnu abi xaatim iyo ibnu murdawey ama marduwey waxay tafaasiirtooda ku wariyeen oo uga wariyeen atabraani inuu almucjimu alkabiiru ku wariyey ayna ka wada wariyeen ibnu cabaas markay soo degatay aayadda ah qul laa as'alukum calayhi ajran ila almawaddata fi lqurba. waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow sala allahu calayhi waaalih wasalam waa kuwee qaraabadaadaas ay waajib nagu tahay inaan jeclaanno. wuxuu sala allahu calayhi waaalih wasalam yidhi caliyun wa faatima wa waladaahumaa waa cali iyo faatima iyo labadooda wiil. xadiidka afraad wuxuu imaam alaxmed uga wariyey oo saxiix ka dhigay annasaa'i iyo alxaakim waxay ka wariyeen almuطalib bin rabiica allah labadoodaba raalli ka noqdee inuu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi wallaahi laa yadkhulu qalba imri'in muslimin iimaanun xataa yuxibakum lilaahi waliqaraabati. wallaahi inuusan iimaan gelaynin qalbiga qof muslin ah jeer uu adinka waa ahlulbeytke idiin jeclaado ilaahay daraaddiis iyo aniga qaraabanimadayda. wuxuu kaloo nabigu sal allahu alayhi wasalam xadiidka shanaad muslim iyo atirmidi iyo annasaa'i waxay zayd bin alarqam ka wariyeen inuu yidhi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wala alih wasalam wuxuu yidhi udakirukum ullaha fii ahli beyti waxaan idinkala dardaarmayaa ilaahay daraaddiis inaad wanaajisaan qoyskayga oo ashraafta. xadiidka lixaadna wuxuu ku yidhi atirmidi wuxuu wariyey xadiis uu xasan ka dhigay alxaakimna uu isaguna ku wariyey almustadrik oo ka wariyey zayd bin alarqam allah ka raali ka noqdee inuu yidhi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi innii taarikum fiikum maa in amsaktum bihi lam tadiluu bacdii kitaab allahi wa citratii ahla beyti walan yatafaraqaa xataa yarida cala alxawdi fanduruu kayfa takhlufuuna fiihima. xadiiska macnihiisu waxaa weeye waxaan idinka dhex tegayaa macnihiisu waxaa weye idinka dhex tegayaa markaan dhinto kadib sala allahu calayhi waaalih wasalam wax haddaad ku dhegtaan aydinaan aniga dabaday baadiyoobeyn kitaabka ilaahay iyo caruurtayda ahla beytkayga qoyskayga labadoodaasna waa kitaabka iyo ahlu beytkayga kala tegi mayaan waxayna iigu wada imaanayaan labadooduba xawdkayga maalinta qiyaame ee ka fiirsada sidaad labadoodaas iiga dambaynaysaan waa sidaad u wanaajinaysaan oo aad ula dhaqmi doontaan weeye. waa badan yihiin halkan ma rabo inaan mawduucaas uga hadlo waxaan ka hadlayaa mawduuca axmed almuhaajir calayhi salaam magaciisu waa alimaam axmed
بن النقيب عيسى ابن محمد ابن علي العريضي ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين السبط ابن الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام أجمعين. الإمام أحمد المهاجر وحكل شيء العراق سنة كلا بقول يلحدن هجرة وحنا أبيه سي أديرديس iyo nuqabaa kaleba ka bartay quraanka iyo tafsiirka iyo fiqiga iyo taariikhda iyo xadiidka iyo adabta iyo alculuumu alcaqliya. taariikh yaqaanadii hore iyo kuwa dambeba waxay isku waafaqeen inuu ahaa nin toosan oo suuban oo taqi ah ilaahay ka dhowrsada. caqiidadiisuna way toosneed oo fiyoobayd. wuxuuna ahaa waacid dadka wacdiya dadka waaniya. wuxuuna lahaa carab faseex ah. wuxuu kaloo ahaa zaahid adduunkan kaba kaaftoomay. marka walaalkiis la dhashay alimaam moxamed bin ciisa uu noqday guddoomiyaha gobolka alciraaq, intuu u yimid ayuu kula taliyey inuu hawshaas ka tago. markaasuu la hadlayay ilaa uu ka yeelo oo uu ka tego shaqadaas. alimaam axmed bin ciisa darajo sarraysa iyo makaan koraysa ayuu ku lahaa bulshadiisa dhexdeeda. wuxuuna lahaa maal aad u fara badan, maalse dan kama lahayn. wuxuuna u shaqaysan jiray aakhiro. wuxuuna wacdin jiray dadka dariiqa toosan ka leexda. wuxuuna u sheegay diinta. wuxuuna ahaa sida awoowihiis almustafa calayhi salaatu wasalaam xagga hadalka iyo ficilkaba. magaalada albasra oo uu ku noolaa ayaa waxaa soo hadiday shiicada alqaraamita uuna madax u ahaa abi taahir aljanaabi iyo shiico kaleba. khaliifadu wuu taag daraa oo daciif ayuu ahaa. dalkoo idilna xukunkiisa kuma wada jirin. sidaas daraaddeedna waxaa jiray buuq iyo qas magaalada dhexdeeda iyo xoog la isticmaalo. markaasuu qof walba wuxuu u baahday rag ilaaliya. waqtiga imaam axmed almuhaajir khaliifada cabaasiyiinta waxay maraysay marxaladda ay culummada taariikhdu ku magacaabaan alcasru alcabaasi athaani oo ah casriga cabaasiyiinta ee labaad. tanoo ay taarikh yaqaanadu kaloo u yaqaanaan casru annufuudi atturki oo ah casriga awoodda turkiga. ayadoo mongolku waa qabiil turkiga ka mid ah, loona yaqaano tartaarna waa loo yaqaanaa, saameyn ku yeesheen xukunka dowladda cabaasiyiinta. gobollana si toos ah ayagu ay u xukumeenba oo gacanta cabaasiyiinta aan ku jirin. waqtigaas wuxuu ku beegnaa inta u dhexaysa 232 ilaa 334 hijrada. arliga alciraaqna siyaasiyan ma xasiloonayn. xadramowt waxaa ka jiray fawdo iyo qalaanqal iyo buuq iyo kacdoomo joogto ah ayna wadaan alkhawaarij. halkan waxaa fitnada ka waday طالب الحق عبد الله بن يحيى
alabaadi oo qabiilka kinda u dhashay. ereygaas xusuuso, alabaadi waa daad. alabaadiya waa laan shiicada ka mid ah oo gobolkaas ilaa maanta ka jirta, oo waaba madhabka dowladda boqortooyada cumaan ilaa maantadan aan joogno, oo waa shiico. waxaa la yaqaanaa aqoontiisa loo badiyaa qaabuuskii dhintay iyo inta xukunkooda haysa iyo dadka intiisa badan ee waddankaas waa shiico, ma aha ahlu sunna waljamaaca kuma jiraan. qalaanqal xoog leh iyo xasilooni darro ayaa xadramowt ka jirtay, oo ayba ku sigatay inay dowladda islaamka ka go'do. hijrada imaam axmed ee xadramowt, caadiyan raggu waxay dal kale ugu haajiraan ayagoo doonaya inay nolol fiican dalkaas cusub ka helaan, ama ay awood siyaasadeedba helaan. imaam axmed hadduu doonayo awood siyaasadeed wuxuuba ka heli karay arliga alciraaq, oo hadduu doonayo wuxuuba gacanta ku dhigi karay dhanka qorax ka soo bax ee dalkaas oo idil. bal wuxuuba walaalkiis maxamed ku qanciyey inuu ka dego awoodda siyaasadeed oo uu markaas lahaa. ragga qaarkiisna waxay u hijroodaan ayagoo naftooda u raadinaya darajo sarraysa ee bulshaday ku dhex nool yihiin. alimaam axmed intaasoo idilba wuu lahaa, oo wuxuuba ahaa hormuudka iyo madaxa reerkiisa alcuraydiya. alcuraydiya waxay ku abtirsataa cali alcuraydi, oo aan janalkan uga soo hadalnay. isaga aabbihiis ciisa bin moxamed alcuraydi wuxuuba lahaa darajada naqiib, isagoo ah naqiibu alashraafi, ahna ninka taladooda gacantiisa ay ku jirto oo maamula. ragga qaarkiisna waxay u hijroodaan ayagoo maal doonaya. imaam axmed wuxuu albasra ku lahaa maal aad u fara badan iyo ganacsi faa'iidooyin badan uu ka helay. xadramowtna maal iyo ganacsi toona uma oolin. tan iyo waagii nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam ka dambeysay ilaa maanta aan joogno, diinta islaamka waxaa fasira, waxaa faafiya, waxaa yaqaana, waxaa macalimiin u ah, waxaa dadka bara, waxaa tajdiidiya oo cusboonaysiiya waa ashraafta. mar kalean ka hadli doonaa arrinkaas haddii ilaahay idmo. sidaas daraaddeed hijradiisa uu aaday xagga xadramowt waxay ahayd ilaahay daraaddiis iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi waaalih wasalam daraaddiis. markuu sanadku ahaa 317 ee hijrada ayuu imaam axmed wuxuu qoyskiisa iyo qaraabadiisa ku qanciyey inay alciraaq ka hijroodaan oo ka tagaan. 2 nin oo ilmo adeeradiis ah ayaa la haajiray. midkoodna waa awowaha bani alahdal, kan labaadna waa shariifka weyn oo loo yaqaano alqudiimi. isaga caruurtiisa waxaa kala haajiray wiilkiisa cabdullaahi iyo wiilka uu awowaha u yahay ismaaciil, lana yidhaahdo busra bin cabdullaahi. dad kaleoo qoyskiisa ka mid ah ayaa ayaguna la hijrooday, wadartooduna ay tahay 70 qof. qaar ka mid ah qoyskiisa wuxuu uga soo tegay albasra si ay riximka ashraafta halkaas ku nool u sii xiriiriyaan,
ayna maalkiisa faraha badan u maamulaan, ayna ilaaliyaan darajada sarraysa oo ay bulshadooda ku leeyihiin. intuu hijradiisa ku jiray, imaam axmed waxaa si joogto ah u ilaalinayay dowladda cabaasiyiinta oo ishay ku haysay, isagoo ahaa hogaamiye leh dad badan oo raacsan oo ay tahay in la tixgeliyo, oo cabaasiyiintu way ka baqayeen oo ka cabsanayeen. imaam axmed wuxuu albasra ka baxay sanadka 317 wuxuuna yimid almadiina almunawara, una yimid awoowihiis nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam, wuxuuna halkaas joogay 1 sano. sanadkan ma uusan tegin maka almukarama, iyadoo ay shiicada alqaraamita halkaas fitno ka wadeen. intuu almadiina almunawara joogay markan ayaa waxaa la soo xiriiray rag reer alyaman ah oo weydiistay inuu dalkooda u soo haajiro. waxaa kaloo la soo xiriiray dadka reer xadramowt oo ku martiqaaday inuu dalkooda u soo haajiro oo dego. markay fitnada shiicada alqaraamita dhammaatay ayuu imaam axmed almuhaajir tegay maka almukarama sanadka 318 hijrada oo uu xajiyey. hijradiisa alyaman. xajka dabadiis asayid axmed almuhaajir wuxuu tilmaan ka helay rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam inuu alyaman u haajiro. xajka dabadiis almuhaajir isagoo wata inta la socotay ayuu wuxuu aaday xagga alyaman, wuxuuna degay xadramowt markuu sanadku ahaa 320 hijrada. sanadkan ayaa ahaa marka ugu horeysay oo uu almuhaajir alyaman galay. garawaantiisa waxaa ku jiray 10 halaad oo geel ah oo ay saarnaayeen dahabkiisa saafiga ah, uuna ku bixiyey jidka ilaahay iyo inuu diinta islaamka dariiqeeda sunniga ah dib ugu soo celiyo. kadib markuu halkaas shiicadu suuq ku yeelatay. magaalada ugu horeysay oo uu degay waxay ahayd aljubayl, iyadoo ay dadkeedu ugu yeerteen oo ku martiqaadeen inuu ayaga u yimaado uuna la dego. magaaladan waxay ku taallaa dooxada waadi duucan, waa deel kor dhaban oo wow lagu reebay, cayn kor dhaban oo nuun lagu reebay. dadkeeduna waa sunni ama shiico khafiif ah. labadooduna waxay cadow u leeyihiin alibaadiya oo markaas xadramowt ku sugnayd. dadka magaalada jubayl degan waa qabiilka kinda iyo qabiilka asadaf, waa saad, waxaana loo yaqaanaa inay sunniyiin yihiin. almuhaajir wax badan lama uusan joogin, wuxuuna u guuray alhajarayn, halkaasoo uu sanooyin joogay. halkan wuxuu ku lahaa maal sida guryo iyo beero timireed. kadibna magaaladan wuu ka guuray. wuxuu maal ku lahaana wuxuu siiyey qaar ka mid ah dadka isaga raacsanaa. kadib wuxuu yimid qaarata bani jushayr, mudduuna halkaas joogay, waana tuulo u dhow buur iyo
mar ayna degan yihiin banu khaythama bilowga qarniga 7 kadib markay ka soo degeen buurta jabalu assuraat. kadibna almuhaajir wuxuu u guuray alxusaysa waa siin wey, laba siin wey, halkaasoo uu joogay ilaa uu uga dhintay. qabrigiisu wuxuu ku yaalaa tuuladan alxusaysa, waxaana ka kor dhisan qubad. videoganna waad ku arkaysaa in sha allah. wuxuu xadramowt joogay inta u dhaxaysay 320 ilaa 345 hijrada. wuxuu ahaa wiilku awoowaha u yahay cali, oo magaciisu cali yahay, midka ugu horeeyey ahlulbeytka oo gala oo dega magaalada Tarim. ilaahayna halkaas ayuu ku barakeeyey. marka ashraafta qofka ugu horeeyey oo Tarim gala oo dega wuxuu ahaa wiilkiisa uu awoowaha u yahay oo magaciisu ahaa cali. siduu almuhaajir ugu dadaalay la dagaalanka ahlulbidca. almuhaajir wuxuu diinta islaamka u lahaa cilmi ballaaran oo qoto dheer, wuxuuna kaloo lahaa awood sarraysa ee ragga lala doodo si cilmiyeysan. markaasuu shiicadii alyaman ee xadramowt jebiyey oo aamusiyey. markaasuu wuxuu dib u soo nooleeyey sunnada oo daciif noqotay, kuna sigatayba inay baaba'do. imaamkiisa oo ahaa alimaam ashaafici ayaa wuxuu daabacay kutubada madhabkiisa, almadhab ashaafici, kutubadiisa ayuu daabacay. wuxuuna nasabka banu haashim geeyay darajada ugu sarraysa. imaam shaafici laftiisu ahlulbeytku ka mid yahay, laakiin wuxuu ku abtirsadaa almuطalib bin cabdimanaaf, haashim bin cabdimanaaf kuma abtirsado. markaasay dad badani waxay ka soo noqdeen shiicada oo ay dib u soo galeen sunnada, isaga hortiisna ku toobad keeneen. waa imaam almuhaajire. markaasuu madhabka alimaam ashaafici xadramowt ku faafay. alimaam axmed almuhaajir daraaddiis iyo ardadiisaba. markaasuu qarniga 7 ee hijrada madhabka sunnadu gacanta sare xadramowt ku yeeshay, oo ka yeeshay gacanta sare shiicada. shiicaduna ay noqotay mid kooban oo taag daran. cali bin calawi iyo Tarim. السيد الداعي إلى الله العلامة السيد سالم بن عبد الله الشاطري isagoo sanadka 2012 ka soo qayb galay ziyaarada السيد أحمد المهاجر wuxuu yiri: waa mar hadda 9 sano laga joogo, 8 ama 9 sano, qofka ugu horeeyey oo ka mid ah ahlulbeyti oo Tarim soo gala wuxuu ahaa cali bin calawi. isagaana ah kan ugu horeeya ee ka mid ah ahlulbeytka oo magaaladaas lagu duugay, inta ku dhintay lagu duugay weeye. markuu salaada tukanayo oo uu yiraahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullaahi, isaga iyo dadka gadaashiisa ku tukanayaba waxay maqli jireen markaas codka nebi moxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam oo shahaadadaas oo kale uga jawaabaya isagoo almadiina almunawara jooga. markaasay dadku meel fog uga imaan jireen
inay gadaashiisa ku tukadaan ayna u helaan barakada codka nebiga maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam. wuxuu kaloo yidhi nin kuwa suusuuban ka mid ah wuxuu riyo ku arkay alimaam axmed almuhaajir oo ku yidhi inuu dhashiisa 3 eed sheegasho u qabo, oo wuxuu yidhi cadamu ziyaaratihim lii 2 yatazawajuuna gayra banaati 3 يرتبون الفاتحة للفقيه المقدم ولا يرتبون إلي. كو يمسوا زيارتان عنيقا 2 waxay guursadaan gabdho aan gabdhahayga ahayn 3 maalin walba waxay faataxada waana quraanka u akhriyaan alfaqiih almuqaddam anigase ima akhriyaan oo gabdhahayga ma guursadaan. waxaan u gartay oo gabdho kale ay guursadaan yaa haddana gabdhahayga guursanaya aniga, oo wuxuu rabaa inay caruurtiisu guursadaan, wiilashiisu gabdhihiisa ay guursadaan, ilma adeeradood inay guursadaan siday ashraaftu hadda yeelaan oo kale. ashraafta Soomaaliya 2 nooc oo ashraafaha ku nool, xuseyniyiin iyo xasaniyiin. hadda markaan waxaan ka hadlayaa xuseyniyiinta. walaalkay injineer shariif axmed cumar abow imaankiyow النظيري الحسيني الشنقاني المقدشاني أنا إنجنييركي دولة الصوماليا oo wuxuu ahaa injineerka dowladda. isagaa dhisay hotel Jubba, hotel Shabeelle, hotel Curuba, hotel Shabeelle maahane hotel Curuba, Casa Popolare iyo dhismooyinka dowladda isagaa dhisi jiray. safaaradahana isagaa kuwa la gadanayo soo sheegi jiray oo soo kormeeri jiray. wuxuu ahaa injineerka dowladda. kutubo badan oo dhigay wuxuu ku yiri inta badan ee ahlulbeyti jaamacadda xamar ee injineeriyadana macallin buu professor buu ka ahaan jiray. inta badan ee ahlulbeyti ku nool alyaman waa farca axmed almuhaajir bin ciisa bin maxamed bin alcuraydi bin jacfar bin maxamed albaqir bin cali zayn alcaabidiin bin alxusein ابن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. wiilkiisa cubaydullaahi ayaa albasra kala haajiray, wuxuuna alyaman ku dhalay wiil uu u bixiyey calawi. wiilkan calawi la yiraahdo waa wiilka ugu horeeyay oo alxuseyn ku abtirsada oo alyaman ku dhasha. ilaahay wuu barakeeyey calawi oo wuxuu siiyey caruur badan loona yaqaano aala calawi iyo baa calawi. farca calawigan waxay maanta ku faafsan yihiin alyaman oo idil, geeska afrika, indiya, malaysia, indonesia iyo dalal kaleba, juzurul qumur, Comoro Island, ayagaa boqor madaxweyne u ah ilaa maantadan. maalka wadankana inta badan ayagaa iska leh. waxayna ka guureen muqdisho way ka guureen. faraca calawigan waxay maanta ku faafsan yihiin dalalkaas aan sheegnay iyo kuwa kaleba. waxayna ka kooban yihiin aala faqiih muqaddam iyo cammu alfaqiih almuqaddam. calawi wuxuu ku dhintay masmala sanadka 420 hijrada. inta u dhaxaysay 800 ilaa 1000
sano ee hijrada waxaa alyaman ka bilaabatay dhaqdhaqaaq ku geysinimo gelinaya ashraafta inay u haajiraan harar ee geeska afrika si ay u taageeraan fidinta diinta islaamka. wuxuu ahaa axmed cumar maxamed annadiiri oo ah faca iyo faraca labaatanaad ee axmed almuhaajir oo uu la socdo wiilkiisa. waxay yimaadeen muqdisho sanadka 1003 hijrada waxayna ku biireen ashraafta kale oo muqdisho uga soo horeysay, gabdhahoodana ay guursadeen. inta badan oo ashraafta muqdisho degani waa faraca axmed cumar annadiiri. axmed cumar bin maxamed annadiiri. intaasuu ku egyahay warkan ka soo qaatay kitaabka injineer shariif axmed cumar abow imaankiyow, oo wuxuu degan yahay, weli waa nool yahay, wuxuu degan yahay ingiriisku degan yahay. wargeyska alxayaat warkan ku saabsan imaam axmed almuhaajir waxaa isaguna soo dhigay wargeyska la yiraahdo alxayaat oo London dalka ingiriiska ka soo baxa, kuna daabacay boggiisa 22aad, midka uu tirsigiisu yahay 11402 oo soo baxay 25 bisha dulqacda ee sanadka hijrada 1414 6 maajo 1994 miilaadiga, uuna dhigay professor Oxford University ka tirsan ee dalka ingiriiska. professorkaasu wuxuu kaloo yiri qaar ka mid ah ashraaftan waxay ka guureen muqdisho una guureen Comoro Islands waana Jazirul Qamar oo ku yaala badweynta Hindiya, halkaasoo ay degeen. halkaasay diinta islaamka ku faafiyeen, ay ayaguna hodmeen. maantana ayagaa ah madaxda dhaqaalaha iyo siyaasadda jamhuuriyaddaas. madaxweynaha dalkuna waa nin shariif ah. ashraaftu waana madaxda xoogga dhaqaalaha iyo lacagta dalka, siday u yihiin oo kale madaxda diinta. dalkaasu waa dalka 22aad ee jaamacadda dowladaha carabta ah. waa intaas warkan wargeyskaas ka soo qaatay. waxaa ayaguna ashraafta ka mid ah oo xasani ah, aan xuseeniyiin ahayn, ashraaf sarmaan dadka ay Soomaalidu tiraahdo. shariif caydaruus bin shariif cali al caydaruus wuxuu kitaabkiisa bughyatul aamaali fi taariikhi as-Soomaal boggiisa 282 ku yiri ashraaf sarmaan waa xasaniyiin, waana dhasha sayid yaxya bin sheekh cabdulqaadir aljaylaani, wiilka ugu yar ee sayid cabdulqaadir aljaylaani waa yaxya, hooyadiisna waa xabashiyad, waa amxaaro, waxay ahaan kartaa amxaaro ama oromo ama tigre, halkaas unbay dadkaasi ama Soomaali, dad halkaasayba ku dhalatayba. markaasay qaar ka mid ah caruurtiisa ayaa alxabasha u guuray oo boqortooyada adari waa harare degay, waxayna ka guursadeen reer abtigood. halkaas ayay kadibna uga guureen Soomaaliya, gaar ahaan dhulka Sarmaan oo ay raxanweyntu degto, wayna kala guursadeen. sanooyin kadib dhaqankoodii carbeed iyo midabkooduba waa bedelmeen. waa intaas warkan shariif caydaruus ka soo qaatay. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. فيديوغان waxaan ka soo turjumay qoraalkan idin sheegay hore idinku soo sheegay oo ah midkan ku dhigay afka ingiriiska ayaan af Soomaali u turjumay wa aakhiru da'waahum anil hamdu lillahi rabbil alamin. kana waa geedka imaam Ahmed bin Isa al-Muhajir iyo dhashiisa ilaa kuwa ka yimid muqdisho arliga Soomaaliya. geedkanna waxaan ka soo qaatay injineer Shariif Axmed Cumar abow imaankiyo oo hadda degan London dalka Ingiriiska. deegaankan waxaa la yiraahdaa shicbu al-imaam Ahmed bin Isa al-Muhajir. masjidkan cad dhexdiisa waxaa ku jira qabrigiisa alayhi salaam. masjidka ka koreeya ama dhismaha ka koreeyana dhexdiisa waxaa ku jira qabriga wiilkiisa Ubaydullah. waa kana qabriga al-imaam Isa imaam Ahmed bin Isa al-Muhajir iyo taariikhda ay noloshiisa ka qoreen iyo siiradiisa ashraafta website-ka aad u jeedo iska leh. kana waa qabriga السيد بن علي صاحب مرباط oo nasabka ashraafta Shingaani ku jira.